waxaanoo qabsoomay shirkeeni caadiga ee khamiislaha uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane xasan cali kheyre. shirkaasoo noo soo bilowday 2 galabnimo haddana ay tahay 8 fiidnimo noo soo dhamaaday. waxaa looga hadlay dhowr qodob oo muhiim u ah. tan hore waxaa la is xasuusiyey in sanadkan 2019 uu yahay sanadkii waxqabadka, maadaama ay mar dhoweyd noo soo dhamaatay in wasiiradii lala soo yeeshay kulankii foolka ahay. waxaa la soo bandhigay waxyaalihii ay kula heshiiyeen wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha oo ahayd inay qabsoomaan bishaan sanadkan aan ku jirno 2019. waxaa qodob loo dul istaagay wasaarad walba iyo wax ay ayaga ay yiraaheen commitment sheetka ay ku saxiixeen inay qaban doonaan sanadkan. kadib waxaa dood dheer laga galay arrimaha ku saabsan halbeegyadii marka laga baxo. waxaa dood dheer laga galay habraaca heshiisyada caalamiga ah oo dhowr jeer xafiiskan la keenay, laakiin u baahnaa in cadeymo lagu sameeyo si wasaaradaha iyo wasiiradaba ay si fiican u fahmaan qaybaha kala duwan ee wasiirka iyo wasaaraddu ay u xilsaaran yihiin iyo habraaca loo marayo. taas waxaa la geliyey dood dheer. waxaa noo soo jeediyey gariiqaanka guud. dood dheerna waa la geliyey, wasiiradana waxay ku darsadeen ra'yigooda. kadib waxaa warbixin gaaban na siiyey wasiirka boostada isgaarsiinta dhacdadii xumeed ee ka dhacday xuduudda Kenya ee lagu burburiyey siinka ama bahasha ay isticmaalaan teleefanada oo ay shirkad Soomaaliyeed ay lahayd. arrintaas waxaa laga hadlay inay markii 8aad ay tahay dhowrkii sano la soo dhaafay ee la burburiyo siimankaas ay isticmaalaan. ay dadka xaafadahaas degan ama magaalooyinkaas degan ay muhiim u tahay inay isticmaalaan EVC-ga maadaama ay isticmaalaan iyo teleefanadaba. marka waxaa lagu heshiiyey maadaama uu jiro shir ay isugu imaan doonaan dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya 28 iyo 29 bishan soo socoto, wasiirka arrimaha dibadda uu aadi doono Mandera, in arrintaas si falanqeyn guud ah loogu sameeyo. haddii ay ka soo baxdo in ay falkaasi u yahay fal qaldan, in dowladda Kenya ay wax ka qabato, annagoo aaminsan dhowrina walaaltinimada iyo saaxiibtinimada annaga iyo Kenya naga dhaxayso. waxaan u tacsiyeynaa dadkii meelaha dhibaatada ka soo gaartay. marka taasna wasiirka arrimaha dibadda waxaan ka sugi doonaa inuu naga siiyo warbixin markuu shirkaas soo idlaado hadduu ilaa raalli ka yahay. kadibna waxaan ka hadalnay sidii loo dardargelin lahay tubaha. wasaaradda warfaafinta ay ku hoolan tahay sidii loo gaarsiin lahaa dadweynaha Soomaaliyeed fahamka tubaha iyo waxay ku fadhiyaan. maxaa yeelay xafiiskan ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha nala shaqeeyaba hadda waxaan maraynaa in ku dhow 20 bilood waxaan ka soo shaqeynaynay tubahan. waa wixii technical ah iyo wixii farsamo ah waa laga soo shaqeeyay. hadda waa sanadkii laga sugayay wasaarad walbaba inay ka soo baxdo qaybtii kaga aadaneed, shacabka Soomaaliyeedna ay fahmaan waxay ka sugayaan wasaaradooda iyo wasiirada wasaaradaha hogaamiya. marka intaas shir ku dhamaa